حول الفلوس حول الفلوس قرح بيسافر فديانو مدول محمد او سارن مرadiis shaati suqa madaxa u saar xawil fuluus bulay midna dhagax buu ku dhufanaya midna u shul dhacay qof lagu cunaya bariis qalalay hal mar hada qaaday isaga wax gaaraadinay dad badan waa ku xanuunsadeen dad xaaray dadkii soo maray meesha haday waa isku arki lahaayeen ama dadka kale ee arki lahaayeen aan aamin lahaa inay dhiman lahaayeen suuxi lahaayeen taariibku waa taalukada ugu weyn ee sanadahan saameysay tiirkii bulshada Soomaaliyeed oo ah dhalinyarada muuqaalka beenta ah iyo miraha aan la guran ee Yurub ayaana soo jiita in badan oo kamid ah muruqa maanta iyo mustaqbalka berrito ee Soomaaliyeed ardayda ka baxda dugsiyada sare ee Puntland ayaana kamid ah dadka ugu badan ee ku dhuma Saxaraha Afrika maalgashiga magafe iyo baadiyowga badaha Yurub waxaana muddada safarkan ay ku jiraan ay la kulmaan ficilo aan hadal iyo qoraal midna lagu soo koobi karin una ka sheekayn karo qofka arkay oo kaliya Maxamuud Daahir Siciid oo loo yaqaan Jaale oo ka hayaamay jaamacadda FSU waxa uu ku sugan yahay dalka Jarmalka waxaana uu iga waramay safarkiisa Soomaaliya ilaa iyo Jarmalka 8 habeen baan soconaynay 8 habeen maalintaan soconaynay ayaa waxaan loo geeyay dad Soomaali oo duur cidla ku nool oo ilaa 200 oo dadkan naxdinta dushooda ka muuqata aan loogu talagalay qof bini aadan dadkaas duur cidaab ay ku nool yihiin biyo ma haystaan cunto ma haystaan waxa dhex maraya nin qorisita uu la sita dhagacantana dhagax ku sita wuxuu leeyahay xawil fuluus qorx bay soo farfadhiyaano mid walba maxamed aw saaran maradiis shaati suqa madaxa u saar xawil fuluus buu leeyahay midna dhagax buu ku dhufanaya midna u shul dhacay telefoon tarayaab kula dhex wareegay halkii baan la ku daatay meeshaas waxaan joogay muddo 14 cisho 14 ka cisho nolosha aan ku nool ragay qayba aakhir isaga jisintay qayba iyagoo aan naf khayr ku jiro meesha kaga soo tagnay Libiya waxa ka jira waa meel looga bartay dhicitaanka iyo boobitaanka iyo ka ganacsiga dadka bini'aadanka waa meel aad iyo aad looga daraasay waxa loo qabanayaa adoo laabiga maraaya waxa lagu leeyahay reerkiina wax ha soo direen fuluus xawiltu fuluus ahayn ma yaqaanin qofkay qabtaaneen koronta lagu qabanaya guriga hoosta laga xiranaya ilaa lacag loo soo diro waxaana la saaray annaga 219 qof abadoona la soo saaray habeen 6 saac habeen doontu waa naqaad weedi waxaana la ku reesay xabad iyo ulbana la ku soo reesay waxaan badda saareen ilaa waqti wuxuu yahay 24 saac maqribkii dambe annaga dadka qaybina suuxsuuxsan tahay qaybina ay madax ka ay dhaqdhaqaajinayso doontuna aysan wax socda goortaas annaga dhinaca ilaah mooyay aysan aanan saameyn ku lahayn baan waxaan noo yimi markabkaasna soo Maxamed Bashiir Cali oo isna kamid ah dhalinyarada naftooda ku haligay safarkan ayaan ka wareysay socdaalkan Saxaraha Libiya iyo Saxariirka tahriibayaashu kala kulmaan magafa horta halna kale lama yiraahdo meesha dadka lagu haysto ayaa waxa la yiraahdaa magafa waa buuro badan oo cilaa oo saxaraha geed ku arkamaysa dhagax ku arkamaysa waa ciid kaliya ciidaas ayaa ninba meel ku haysta dadka sida ariga intuu xaraya ayuu meel saa u daadinaya asaga buul yar baa u dhisan oo qorraxda uu ka galaa dadkii Soomaalida ahayd meel bay daadsan yihiin ciidii baa soo daadsan ninka ciidu intuu soo u jeexdo ayuu cid soo dhaxgalaya 24 saac ayaa waxa lagu siinayaa hal mar bariiskaas oo qalalan oo aan bislayn oo de wax aan ku tilmaamo aan garanay hatta ariyeena hadii aad macalsiis aad hatta aad u qoora marka bariiska cunto ayaa lagu siinayaa 300 ml oo biyo ah wacaagada babacleeda ayaa laba qof la sugan siinaya nin kasta haaf buu leeyahay intaas ku joogaysaa maalintii qorraxdu waa saxaro waa meesha maxaan ku iraadaa Saxaraha oo meesha qorraxda oo ugu daran ay qorraxdu hayso qorraxda marka ma ku timaado waxa ka gashay mahalaysid maskaxdaada ku doolanaysaa nafaqa la'aan qorraxdii ku dhuuqaysa iyadoo aad cunto cunin oo biyo cabeen oo wax kala cunayn dadkii wax u ekaanaya bahalo dadkii soo maray meesha haday waa isku arki lahaayeen ama dadka kale ee arki lahaayeen waxaan aamin lahaa inay dhiman lahaayeen suuxi lahaayeen because of dadkaas oo ekaadeen sidii bahaladii camal ay noqdeen maxaan ku iraadaa waxa la sameeyay dadka inta dharka laga dhigo oo banaanka qorrax la istaajiyo ayaa waxa lagu qaraacayaa jeedalka fardaha lagu kaxeeyay ay dadka lagu qaraacayaa iyo tuubooyinka shidaalka markii lagu qaraaco qofka jirkiisa markuu dhiigo ayaa waxa la soo qaadanayaa batroolka markii la soo qaado ayaa batroolka karka looga shubayaa qofkii soo qofka saacid suuq gelinaya kii dadkooda waalidkooda lacag u soo diraan quudashada biyo iyo raashin kooban ma ku eka dhibaatada loo geysto tahriibayaasha oo ah kuwa aan u dulqaadan karin ficil kasta oo ay la kulmaan waa kan Cabdulqaadir Axmed oo indhihiisa saaray wiil Soomaaliyeed oo lagu khasbay inuu cuno ciid uu ku saxarooday wuxuu ku kaadiyay meel adigu dadka fariistaan oo bay iskala halkaas ka kaaday waxa dhacday mid kamid ah dadka
ma haystay inuu arkay wiilkiina in lagu qasbay inuu kaadidii uu cuno madaraka meeshuu kaadiyey ciidigaadii waa ina cuntaa wallaahi runtii ciidii saaxiib wuu cunay kaadida wuu cunay intii ku hadheen waxaa wixii markuu isku diraali wixii ku harayna oo diriga u dheeryahay oo intii ku hadhayna jeeb ku qaado weli waa ina cuntaa xilliyada ay tahriibayaashu ka baxayaan Liibiya kuna sii jeedaan Yurub waxay kireystaan doomo yaryar oo ay ku raacaan tiro ka badan intii loogu talagalay intaas waxa uga sii daran doonyaha oo aan marka horeba badqabin Maxamed Bashiir Cali waxa uu sheegay in doon ay ku saarnaayeen 120 qof oo muhaajiriin ah ay badda kula qaraqantay kadibna biyaha ay dul sabeynayeen 18 bari aysan helin quud ay quutaan oo aan ka ahayn hilibkooda jiheeyihii iyo toreey ayaan wixii dhan oo ka khaldan ayaa badda lagu diray markii lagu diray badda weelunta 18 bari ayaa badda ku jirta dad 18 bari gaajeesnaa maxaad ka filanaysaa dadkii wax dalaa in ayagu ay socnaan ninba ninkuu ka xoog badan yahay ayuu cunaa doontii waxaa ka soo badbaaday 7 qof ku soo laabtay Liibiya 7 soo badbaaday meeshii arxaan loo gali lahaa ay ciidamada Liibiya inta qabtay xabsida ku tuuran afarna waa dileen tubta iyo taraaga tahriibta dheer kadib himiladii humaagii iyo hankii hodanimada Yurub madhab ayay noqotaa mise dhalaanteed waxa igula nool meesha dad gaaraya 160 qof oo Afrikaan ah waxaan Soomaali ku nahay dad 5 qof ka yar waxay ku nool yihiin rajo faqiir ah waa iska daroobaystayaal waa dad nolosha ka dhacay macna badan u sameyn mayso dhirta laacaysa iyo laamiyada una Yurub ay leedahay iska fiirsanayaan xisaabta nolosha ma yaal waxa xusin mudan inay u muuqato sawirka aan Yurub ku soo galay iyo hamigeygii aan u socday kaaf iyo kala dheeri bulshada waxaan leeyahay waxaan ku jiraa baraare barwaaqo iyo nimcaan la soo koobi karin waxa xusin mudan inaad joogtaan dalkiin waxa xusin mudan cimilada iyo ciid aan maraysaa inay ku tahay mid aad ku dhalatay meeshan u soo rooray waa ku talaxmaysanay 99 annagana waqtigayagii aan u luminay iyo nafteedii aan soo xalignay ilaahay caawil khayr qaba ha naga sii idinkana waxaan idin leeyahay ma yaalin Yurub wax loogu soo roora qof talada kuluntay baana ku soo roora ha ku soo degdeginina Yurub dadku wax u qabaan wax leeyahay qof haduu Yurub galay bas qofkaas waa raaxaysan nolol buu ku jiraa waa been qofkaas wuxuu ku noolyahay warka maasid waxba yeesan in maxaan ku yiraahdaa dharka cadcad iyo dharka la soo gashanaya cidna yeesan hodin waxa ay ku hayaan ma jiro markuu yimaado wadankii uu socday oo Yurub soo galo Yurub wax yaala ma jiraan xiliya badan baan niyadeeda ku dhacday dib hadaa wadankaagii aad iska joogi lahayd waxa dhib kuma qabsateen shalay ayaa ku bilaamaya qalbiga ku ooyeysa markii lagu gumaysto madaxa laga saaro oo xabad roodhiga lagu siiyo oo qol lagu xareeyo oo injirta iyo wasaqda waa nolol ilaahay hadii aad ku dhimatidna runtii aad cadaab ku mutaysanayso qofkii arka horta wuu arkay qofkaan arag waxa looga sheegayo runtii waa wax run ah ardayda dhamaan runtii wadankeena insha Allah Yurub sida laga aaminsan yahay ma Yurub waxa ma yaalo runtii dadka jooga aad loo wareystaa waxaan anagu ka filaynay meesha ugu manimaan walina ma hayno marka wax barashadiina hal wato inta wax baranaysa dadka loo aqal celiyo shirkadaha waaweyn ee qaaradda Yurub iyo wadamo fara badan oo reer galbeedku ay ka mid yihiin ayaa hadda tartan xoogan ugu jira sidii ay u maalgashan lahaayeen Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer ee qaaradda Afrika carasan ku habboon beerashada kana mid ah wadamada ugu xoolaha badan caalamka